dekiyo ka socday waxaan waa qolada badda inoo haysata Cabdirasaaq Catoosh. qaar ka mid ah odayaasha gobolka Sool ayaa ka hadlay jirdil uu geystay wariyihii hore ee BBC-da Cabdirasaaq Catoosh mid ka mid ah uqaasha gobolka Doolo ee dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. odayaashan ayaa ugu baaqay madaxweynaha dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya in si degdeg ah loo soo xiro wariyahan oo dhibaato u geystay Caaqil Faarax Maxamed Cali Maahir oo iminka lagu dabiibayo mid ka mid ah isbitaalada waaweyn ee magaalada Jigjiga. waxaan halkan ka direynaa baaq aan ku cambaaraynayno dhacdo maanta ka dhacday Jigjiga oo saacadihii idagu ilaa 12 meelaha waxaanu nahay odayaashii dhulbahante ee uqaasha ahaa iyo odayaal guurtiya baan isugu jiraa waxaanu soo badannahay caaladii ninkaas ka lagu dilay hotel Najax restaurant oo ku yaala meesha la yiraahdo Jigjiga ninka waxaa dilay nin hore u ahaan jiray suxufi BBC-da u shaqeeya oo aan xumo laga gaariyay BBC-da oo la yiraahdo Cabdirasaaq Catoosh ninka ciidamo qaban booliska madaxweynaha iyo hay'adaha ammaanka ee dawlad deegaanka Soomaalida oo u horeeyo madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar waxaan u direynaa baaq ninkii dilay lama qaban isagoo kooma ku jira buu hadda yaala cusbitaalka dadku waa isdhexdegaa meel walba faamilgiisu dadku ma kala qarsoona wuu isdhexdegaa dadku laakiin marka dhacdadaas oo kale ay dhacdo waxaa muhiim ah in la xiro qofkii dambiilaha ahaa ee dambiga sameeyay qof criminal case galay oo isagu Jigjiga xor u maray qofkii uu dilayna dhaawac ku yaala magaalada waa arrin aan ka filayn dawlad deegaanka Soomaalida oo madaxweynaha ka yahay Mustafa Maxamed Cumar waa cambaaraynayna waa fal aad u xun hadaanu nahay odayaashii dhulbahante iyo caaladii ninkaasi ka dhashayba aad iyo aad baan u cambaaraynayna waxaanu codsanaynaa in la qabto ninkaa oo cadaaladda la hor keeno waxa si labeeya ninkaasi wuxuu ka tirsan yahay baarlamaanka dawlad deegaanka Soomaalida ee heer degmo waxaa laga soo doortay degmada Booq wali ma arag ama hadeemaan arag nin isagu leh xasaanad oo hadii abayd maayo nin deegaankaasi oo nin sicibihi intuu gacanta la galay dilay haddana si xorriyada suuqa u jooga anagu waxa dadku aaminsan yahay oo hadaanu beesha dhulbahantanahay aaminsanahay Jigjiga in maamul dawladeed oo uu ka jiro cadaaladii arinta waanu ku argagaxnay waxaanu mar labaad iyo mar saddexaad baaq u direynaa in Cabdirasaaq Catoosh oo BBC-da u shaqeyn jiray la qabto ninka uu dilayna waxa la yiraahdaa Caaqil Faarax Maxamuud Cali Maahir oo laga soo doorto Booq degmada Booq oo loo geystay xildhibaan heer deegaan ah heer degma ah oo laga soo doorto degmada Booq oo ah haddana caaqil oo loogu gacan qaaday arrin fool xun oo qabyaalad ah oo caddaan ah oo uu geystay nin suxufi ahaan jiray oo BBC-da ku jiray oo la yiraahdo Cabdirasaaq Catoosh social media aad u isticmaala dhawaana social media dad gaf uga geystay maantana isagoo qabyaalad ku hadlaya oo xaajadaasi ay ka bilaabantay arrin qabyaaladeed ugu gacan qaaday caaqilka hotel la iskugu yimid oo ka tirsan magaalada Jigjiga nasiib darro ninkii falka geystay laba qaban waxa la qabtay dhalinyaradii moobilka kamarada kaga duubay ee arkayay sida wax u dhaceen ayaa bileys ku qabta caaqilkina koomo ku jiraado wuxuu yaalaa dhakhtar sababta loo qaban waayay isaga ma aanan garanin deegaamadu marayay Catoosh laascaanood buu nala joogay burcuu marayay deegaamadu dhan buu ku wareegayay
isagoo sidaas ah oo suxufi ah oo intaa ummaddu dhegaysanaysay maanta inuu yidhaahdo intuu qabiilo caayo golo ku caayo haddana uu yidhaahdo waxa la gacan qaado oo haddana la qaban waayo nasiib darra arrintaas weeye marka xigta falkaa waa cambaaraynana waxaan leenahay komishineerka booliiska ee kilinka arrintaa wax ka qabo oo dadku meel walba waa wada joogaa cabdirasaaq Catoosh soo qabo madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafana waxaa leeyahay Mustafow ficilku uu deegaanka laga sameeyay Soomaalinimada uma wacna wada dhalashadana uma wacna dadka islaamkana uma wacna dambiiluhu markuu dambi galo gacanta lagu qabtaa ninka maanta xildhibaanka caaqilkana gacanta u qaaday berinaadu ku qaadaya cidna lama dhalan dambiile haddii aad wax ka qaban weydaan oo arrintaas siday tahay looga jawaabi waayo haddii nin waliba waa yaqaanaa waxa uu ku jawaabo meesha waxaan filayaa waxa uu dhulbahante ku leeyahay farmaajo taageersan tihiin haddii Kenya ka socday waxaan leeyahay waa qolada badda inagu haysata Cabdirasaaq Catoosh wax kale ma aha ummadda Soomaaliyeedna Kenya iyo Soomaaliya meesha kala marayaan waa ogyihiin isaguna dhalashahan Kenya ka soo jeeda waa nin Kenyaati ah arrintaasi waa arrin fool xun waa cambaaraynana jawaabteedana 24 saac waa sugaynaa insha Allah ta'ala madaxweynahana waxaan leenahay wax ka qabo iyo komishineerka maanta in la qaban waayo caaqilkuna cusbitaal iyo loo kooma ku jiro ma aanan qaadan alxamdulillahi rabbil aalamiin wasalaatu wasalaamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam waxaan halka kan kaga hadlaynaa sida odayaasha iyo cuqaasha igu horreysay ay sheegeen anigoo ku hadlaya afka caa'iladii caaqil Faarax Dheere oo ah caaqilka maanta meesha la yahay Jigjiga hoteelka la yiraahdo Najax Restaurant oo ka soo horjeeda mustajaamaca qabyada ah la dhisayo maanta uu ku dilay oo dhaawaca weyn uu ugu geystay ninka qabyaaladaystaha ah ee caan baxay ee loo yaqaan Cabdirasaaq Catoosh anigoo ku hadlaya caa'iladii iyo qoyska afkiisii oo ah caaqilka walaalkii waxaan halkan marka u horeysa aan baaq u dirayaa Soomaali marka labaadna baaq waxaan u dirayaa madaxda dawlad deegaanka oo ugu horeeya madaxweynuhu oo uu ku xigo hoggaanka nabadgelyada Dr. Xuseen Xaashi Qaasim oo ku xigo komishineerka booliska Maxamed Xuseen Maxamed Cali waxaan leeyahay Soomaali baaq baan u dirayaa Soomaaliya iyo Cabdirasaaq Catoosh oo aad horay u ogeydeen oo meesha uu Soomaali iyo horumarkeeda iyo qarannimadeeda ka jooga aad ogeydeen waxaan idin cadaynaynaa oo halkan idin ka sheegaynaa inuu maanta caaqil beeleed oo beel Soomaaliyeed caaqilkeedii ah oo ka tirsan deegaanka dawlad deegaanka Soomaalida oo gobolka Doole ka soo jeeda degmada Booq oo ah xildhibaan heer degmada Booq ah xisbi ah soo shaqeeyay in badan oo nabadgelyada ka soo shaqeeyay arrinta ka socota ICG iyo Heeg isaga oo ku taageeraya Kenya Soomaali iyo hoggaankeeda iyo dawladeeda dhexe iyo dadka metelaya ee Soomaali kulli ay u wada taagan tahay banaankana cambaaraynaya oo maagaya arrinta la ajligeed qabyaaladna halka ka galay oo beelaha Soomaaliyeed beela waaweyn oo kamida aflagaadeynaya inay halka maartay ku wada hadleen caaqilka kadibna uu halka ugu geystay dhaawac weyn haddana uu kooma ku jiro uu yaalo cusbitaalka Soomaali marka waxaan u dirayaa baaqa Soomaaliya Cabdirasaaq Catoosh waa ninkaad horay u ogeydeen waa ninkii BBC wuxuu ka sameeyay aad ogeydeen maantana taasuu sameeyay isaga oo qarannimada Soomaaliyeed la dagaalamaya isagoo badeena iyo deegaankeena iyo qadiyada Soomaaliyeed ee kulli shanta Soomaali isku taageersan tahay isku barbar taagantahay isagoo ka soo horjeeda taas Soomaali sidaas aan u sheegayaa waxaan u sheegayaa hoggaanka sare ee dawlad deegaanka madaxweyne Mustafa Maxamed Cumar
madaxweyne mustafow adigana qoraaladaadii iyo halgankaaga Soomaali ugu jirto iyo taageeradaada waa la hayaa Cabdirasaaq Catooshna maanta cagahaaga wuxuu ku laayay muwaadiniin Soomaaliyeed isagoo oo taageeraya waxa la yiraahdo Soomaali diidka isagoo taageeraya horumar diidka isagoo taageeraya TPLF iyo dadkii dhiigga Soomaaliyeed miirtay ehelkeenii dhameeyay isagoo taageeraya sidaas uu ku dilay caaqilku waa caaqil Faarax Maxamed Cali Faarax Dheere waa nin xisbi ah waa nin xildhibaan heer degmo ah waa nin waxgaradka iyo aqoonta gobolka Doola ah waxaan kaloo la hadlayaa hoggaanka nabadgelyada Dr. Xuseen Xaashi Qaasim Dr. waxaan ku leeyahay ninka la soo qabto hala soo xidho cadaaladda hal hor keeno waxaan leeyahay komishineerka booliska komishineer Xuseen Maxamed Cali waxaan leeyahay ninka soo qabo cadaaladda horkeen intaasaana deeqda ehelkii iyo qoyskii iyo qaraabadii iyo waxgaradka iyo cuqaasha beesha deeqda intaasaanu kaga gamaynaa cadaaladda horkeena ninka waxaanu ka codsanaynaa marka ugu horeysa madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar inuu ninka soo qabto cadaaladda mariyo waa ognahay madaxweynaha deegaanka Soomaalida waa nin Soomaaliyeed shalay saxaafadu ka hadlayay wuxuu taageeray Soomaaliya iyo badeeda isaguna maanta ninka caaqilka wuxuu ku dilay madaxweynaha Soomaaliya maxaad u taageeraysaa maxaad badda Soomaaliya u difaacaysaa arintaasu ninkaasi waa nin u shaqeeya shisheeye dadka Soomaaliyeed si ay ogaadaan ma rabnaa aad iyo aad ba mahadsan doorinayna komishinka iyo hoggaanka nabadgelyada iyo hoggaanka maxkamadaha cadaaladda ee dowlad deegaanka Soomaaliyeed arinta inay wax ka qabtaan oo ninka isaga ay cusuriga ah meel kasta ee dowladda Soomaaliyeed oo maanta hogaaminayo Maxamed Abdullaahi Farmaajo caaqilka xildhibaankan aawadeed ku dilay inaad ogaataan haweenkaas waa yani waa nin cusuriga weeye waa haraagii dhargigii weeye waa la garanayaa markuu Kenya joogay codkiisa waa la maqli jiray websaytadiisa waanu naqaanaa meelaha uu ka duulay waanu naqaanaa haddana wuxuu meelaha firi leeyahay waa la garanayaa khalkhal iyo dhibaato buu kula jiraa dadka waayo ninka xildhibaanka caaqilkana madax dhaqameedku iyo mas'uuliyadda iyo xasaanadu wax qaaliya weey waxaanu leeyahay dowlad deegaanka Soomaaliyeed hogaamadeeda nabadgelyada iyo hogaamadeeda cadaaladda waxaanu ku codsanaynaa ninka eedeysanaha in wax laga qabto dadkuna waa dad walaalaa waa dad Soomaaliyeed waa dad meel walba wada degan waa dad meel walba wada jooga